السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة قيمة قائلة من البرنامج ده ونيسان وبرنامج كان الدنيا الصومالية ومر البرنامج برتين لأن فسوق بينه برنامج كان سلنا أمريكا وحيس بديه برنامج كويس سوق بينايا سيد عادة أيد بقى أنا جو خليف عبد علي ما أنت قضب بدأ أمورك يدون كوهين السيد عاد كاركتر مقال كجلاش إذا كوي لبا وحوي وسكوريتي كانسل كا أو شري دستالين أو ورقة قري ورجيس عنك فورين بوليسي هي فرماجة الرجل الزاري وحيابي وقوصه مالمي قدام بيسي انت أو ورك بدحديسي هوري وسوف فاسن كسود وهذا دمانتين شنطة صوماليات مثل لحظة صوماليات أول شنطة صوماليات بين إن هذا لك وحين نقول لحظة صوماليات صوابته قرب جوكت صوماليات ورنا يدنا ووضن كراتين قلت مركا لحظة صوماليات إنكوا dhammaantiin meel walba joogtaanba soo dhawaada waa anigoo khaliif cabdicali saad weydeenba waqooyiga Itoobiya waxaa ka socday dagaal aad iyo aad u culus kaasoo gacmaha la isula tagay waxba la isula haraynin oo qowmiyado maamulka Abiy Ahmed oo hormuud u tahay qowmiyadda Amxaarada iyo qowmiyaddii 27 sano Itoobiya u soo talinaysay TPLF hogaaminaysay oo dhiigga qowmiyadaha Itoobiya oo dhan soo jaqay oo ciil iyo cadho loo qabay ayaa runtii aad iyo aad halkaas ku haleelay qowmiyadda Amxaarada ayaa waxay ku haaminaysaa inay sidii TPLF mar labaad Itoobiya gacanta ku wada dhigto iyagoo dhan Oromo Soomaaliya Canfar Benishanguul Sidaama dadkoo dhan macal Tigreegooda inay mar labaad afka gashatay rabtaa si ay u soo ceshato boqortooyadoodii ay hore u haysan jireen oo boqorkooda kabihiisa loo leefo iyaga diintooda ay noqoto diinta kaliya waddanka sharcigu iyaga ay noqdaan dhulka oo dhan ay iyagu lahaadaan beeraha iyo barwaaqada iyo dahabka oo dhan ay qowmiyadda Amxaaradu maamulato qowmiyadaha kaleetana ay noqdaan kuwa isleefisa oo amarka qaata waa ujeedada qowmiyadda Amxaaradu ay rabto weeyaan sidaa darteed Abiy Ahmed iyo qowmiyadda Amxaarada markay xukunka yimaadeen si lama filaana runtii mayna u dhaqaaqin nidaam dowladnimo doorasho dimuqraadiyad cadaalad iyo inay ka talageliyaan qowmiyadiisa way fududahay Tigreeg in laga takhaluso qowmiyadaha Itoobiya oo dhan oo wada waafaqsan oo israacsan Tigreeg in la qabto waxaa ka fudud yani fartaytan saadhaaya waxaa ka fudud Tigreeg in la qabto markii energy badan iyo dhiig in la daadiyo muhiim ma ahayn waxaa muhiim ahayd hadday Amxaarada iyo Abiy Ahmed ay rabaan cadaalad wada noolaansho dimuqraadiyad Itoobiya ka dhalata intii TPLF aadin waxay ahayd inay marka hore sharcigii lagu wada noolaan lahaa qowmiyadaha Itoobiya ay dejiyaan doorasho xalaala ay dhacdo oo laga baxo xukunka boobka ee Abiy Ahmed ku yimid ee awalba sharci darrada ah qowmiyadaha Itoobiyana ay soo doortaan mas'uul si dimuqraadi loo soo xulay oo sharciga ummadahaas kala duwan ku hogaamiya ujeedadu saas ahayd laakiin falka isaga Abiy Ahmed iyo Amxaaradu waxay ku dhaqaaqi lahaayeen hadday rabaan inay Itoobiya nabad ah oo cadaalad ah oo la wada noolaanayo ay u jeedaan bay saa samayn lahaayeen ujeedada Abiy Ahmed iyo Amxaaraduba fadhigooda iyagoo xafiiskooda fadhiya waxay ku og yihiin inaynan Itoobiya haddii doorasho xalaal qabtaan inaan la dooranaynin boogin sababtoo waa minority Amxaaradu waa 20 milyan Abiy Ahmed 3 milyan iyo 2 milyan ba Oromo oo dhan ka taageerta sidaa darteed Itoobiyana waa 110 milyan weeyaan marka waxay ka dhigan tahay wax isla noqonayaan 24 milyan
24 milyan haddii doorasho dhacdo wax kuraasana baarlamaanka nafle kuma helayaan lamana dooranayo marka iyakan waxay rabaan inay waddanka oo dhan ay qabsadaan marka ma aqbali karaan arrintaa iyada ma aqbali karaan inay doorasho dhacdo sidaa darteed waxay ka doorbideen taa beddelkeeda in ay afduubaan way sidii booskii tigreega galaan oo waa minilig iyo xayla silaasi iyo already abiy axmed markuu yimidba wuxuu bilaabay inuu sawiradii iyo istaatiyadii xayla silaasi iyo miniligii uu soo celiyey bilaabay already waa nimankii dadka xasuuqay waa nimankii binishanguulka addoonsan jiray soomaalida wiilashooda hooyooyinka abtuugi jiray dembigaad aragteen gale marka waxaa ka cad meesha iyadaa inayna u jeedin wadda dimuqraadiyada cadaaladda abiy axmed iyo amxaaro oo wada socota waxay ballansadeen oo samaysteen xisbigan la dhaho markooda waxay u arkeen federalismka iyo qowmiyadu inaynan waxba cunayn sababta qowmiyadoodu waa dhagax weeye statekoodu waa state dhagaxaana oo barwaaqo badan oo ku jirta lahayn beeruhuna ayna ka baxayn sababto intaasoo kunoo sanaa la beerayay dhulka buuraha marka waxa ay rabaan inay ku noolaadaan waa dahabka oromo beeraha oromo ama dahabka soomaali iyo beeraha soomaaliyeed sidaa darteed waxay dhaheen waa inaan la kala lahaanin dhulka oo etoobiya oo dhan waa inay maaragta wax walba laisku darsadaa oo ninka prime ministerka iyo ninka waddanka xukumo waxoo dhan wada xukumo okay xukunku ay dimuqraadiyad ma ogoshin maya ma ogolin ma rabno etoobiya inay dimuqraadiyad ka dhacdo sababta haddii dimuqraadiyad noqoto ma noqonayna madax ma noqonayna madax way aaminsan yihin sidaa darteed maxaa la samaynaya marka waxaa la samaynaya waanu afduubaynaa waddanka waa inaan afduubno okay waxay samaysteen mustafa loo yeeray waxaa la yidhi shir weyn ku qabo qabaa'ilada soomaalida sababta stateka loo socda ugu muhiimsan ee barwaaqada oo dhan taalo ee loo soo guurayo ma aha oromiya mana aha tigreya mana aha canfur waa ee khayraadka ugu badan yaallo ee soomaaliduna mar walba soo weerarto waa deegaanka soomaalida mustafa waxaa lagu yidhi orod soco waxaad ku qabataa goday shir aad u ballaaran odayaasha kaaba qabaa'iladoo dhan waxaad ka keentaa nageyle iyo mooyaale iyo city iyo meel walba iyo qoraxay iyo maaragtay nogob iyo waxaad ka keentaa ilaa dhulka oo dhan ka keen kadib maxaan ku dhahaa waxaad ku dhahaysaa dhulka etoobiya iska leh idinku maanta laga bilaabo dhulka malihdiin qofka etoobiyaanka meel walba ku noolaan karaa dhaqanka etoobiyaanka ana maaragtay waa dhul maaragtay soomaalidana dhaqankeeda lama bedeli karo marka soo dhoweeya oo gacmo fura waxaad ku soo dhoweysaan binishanguulka iyo amxaarada iyo cid walba oo dhulkiina qaadanaysa okay waaye fariid madaxweyne mustafe haddii ay saas tahay waay oo 1 milyan ee soomaaliya 500 sano ku noolaa oromiya maxaa loo soo cayriyey madaxweyne mustafe iyo tiimkiisu jawaab uma hayaan 1 milyan haddii etoobiya dhulka aan la kala lahayn oo la wada noolaanayo 1 milyan ee qoloji duldegan ee soomaalida waay oo qoloji loo keenay waay oo dhiigooda loo soo daadiyey waay oo xoolahoodii loo soo dhacay maxaa etoobiya waa la wada leeyahay ay u joogi waayeen meeshay 500 sano ku noolaayeen dagaalkii axmed gurey bay nimankaas soomaalidu xalkaa tageen dhulkaas ilaa waagaasna halkaasay ku noolaayeen laakiin soomaali baa tihiin baa intii lasoo wada xoogay lasoo gowrgowracay lasoo qaxiyey yaa waxaa la dul keenay qoloji meeshan waxay dhahaan jijiyo korkeeda madaxweyne mustafe su-aashaa jawaab uma hayo dowladdiisu jawaab uma hayso waxa keliya ay fariintaa loo soo dhiibay ahayd u sheeg soomaalida dhulka inaynan lahayn oo loola leeyahay marka meeshan waxaa soo baxaysa ninkan ay dhahaan abiy axmed wuxuu ka khatarsan yahay xayle salaase xitaa xayle salaase iyo mingiste iyo meled zanaawi oo laisku daray isaga ugu khatar badan soomaalida markaad eegto siyaasaduhu ku dhaqaaqayo isagoon tallaababa qaadin isagoon hal tallaabo hore u qaadin yaa niyaddiisuu sii hadlayaa yacni dhulkii soomaaliyeed buu wuxuu rabaa isagoon ma dhahayo etoobiya waa la wada leeyahay cidna cid kama xigto waa lagu wada noolaan ninba meesha raba ku noolaan taa waa war la gartay oo haddii soomaalida loo sheego oromo loo sheego binishaguul loo sheego sidaamo loo sheego amxaara loo sheego tigreya loo sheego waa war laakiin may dhicin taa iyadaa may dhicin soomaalida keliya loo sheegay sababta ujeedaduna waxaa weeye waa soomaalida dadka mar walba dulman dhulkoodu qaniga yahay iyaguna iska marqaansan ee qabaa'ilka aaminsan ee aan madax daacad u aanan haysanin qowmiyadaha kaloo dhan sidaama ugu yaroo 2 milyana waa dad isku wada xiran maalin dhaweytu waa yakii qasar stateka ku noqday xoog sababta dadkoodu waa dad aqoon-yahanaa madaxdoodu waa madax wadaniyiina waxaa way marsin waayeen waxay dhaheen oromo state bay noqotay soomaali state bay noqotay annagu meel dhacilaa kuma dhacayno xoog baana lagu aqbalay inay state noqdaan cidna kamayna baryin sababtoo ah 2 milyan oo israacsan cid hor istaagi karta maaha 2 milyan oo qof ah oo taladooda sababta waa ku abwaankii reer tuunise dhihi jiray
إذا شعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر هذا الشعب دونان إرادة هذا لي ماذا شعب حتى قدر إلهي بأجيبه يعني شعب هذا إسراعان وجدوا مال أي وضع نقطه مليون أو لو مليون جارية عيد هورستاي كرتم ملا ربيتان ربا هذي ليهم وداعدين سدام حوق فوقات أوكي أبي أحمد مركب وجهه قبوح موجي سلام مركب وحبه بحزب الصوماليات الديان الصوماليات وحنا يجي حزبيا أنا روي بابايا هل حزبيا أنا ولا كليا جري أول دو مدمر بوك سيدي أرسنال وسوق قرطي بوك مدمر بالله هل ميل بالله حكومة يا سوا ضد كلوجي يرينيا ديان الصوماليين أنا بدنا نبني كل يتعال صاحولي نحن ودنا شقة كلهين قضية شقة كلهين ضد شقة كلهين horumar wax shaqo ku lahayn tacliin shaqo ku lahayn caafimaad shaqo ku lahayn tuugo yaa lagu soo xulayaa bas inay ku dhacdo iyo inay ku boobto iyo inay ku baadishe xaqaaga marna ka hadlayn waad aragteen gobolka city ee Soomaaliyeed maalin daa'ina weerar baa lagu soo qaadaa state-ka canfarta laga soo weeraraa waxa soo weerar ciidankii federaalka iyo booliiskii canfarta iyo maleeshiyaad iyo qabaa'ilkii ma arkays malihi halaala dagaalama canfar oo canfartu waa dad ay helnaa laakiin waxay ahayd maamulka deegaanka Soomaaliyeed liyu booliiskoodii iyo maamulkoodii iyo maleeshiyaadkoodii iyo qabaa'ilkii city deganaa oo wada jir ah inay ka hortagaan bay oo dhan way shacabka loo soo aadaya laakiin shacabka Soomaaliyeed lama barin maamulka Soomaaliyeed maamul u carbisan maaha inuu dhaho dan Soomaaliyeed ka hadlo waxa meesha loo keenay inuu nacam u dhaho Ethiopian baatiin dadku way soo gureen isagoo waa fariin gudbiye kaliya waa fariin gudbiya baarjidka Soomaaliyeedna way cuni karaan way xadi karaan carruurta Soomaaliyeed bilaa tacliin bay dhigi karaan bilaa caafimaad bay dhigi karaan laakiin Ethiopia markay noqoto waxba kama dhicin karaan waxbana kama difaaci karaan xuquuqdooda ma soo dhicin karaan laakiin xoolo badan iyo ari ay ururiyaan iyo dollar ay ururiyaan wadacsa taa iyada waa taas haddaan u soo noqdo qodobkayga subjectiga Soomaalida waan ku taraaraxay runtii laakiin pointiga maanta aan u soo galay baan rabaadkada colaadii waxay noqotay Amxaarada iyo Abiy Ahmed already Amxaara waxay mayna qarsanin furinta TPLF markii aaday calankoodii dhargiga la soo baxday ciidankii la lahaa waa ciidankii federaalka Ethiopia calankii federaalka Ethiopia meel buu iska dhigay calankii dhargigu la soo baxay baabuurtiisa uu ku buursaday waxa kale oo ay sameeyeen waxay jeexjeexeen calankii TPLF ta jeexjeexeen yani meesha waxaad ka arkaysaa maleeshiyaad nacayb ku buuxa oo u jeedin qarannimo sababtoo ah TPLF calan qowmiyad leedahay lama burburin karo laakiin waxa la burburin karaa mujrimiinta TPLF waa la weerari karaa inay qaab ciidan u dhaqmaan bay laakiin mayna dhaqmin yani waxa niyadooda ku jira ayaa soo hormaray already calankii dhargi ay la soo baxeen ciidamadu way kala qalbi jabeen runtii oromada iyo qowmiyadaha kale oo dhan kuma faraxsana sidii Amxaaradu wax u maamulayso Amxaaradu dagaalka iyada hogaaminaysa Tigreegi jananadoodii dhan waa la casilay oromada jananadoodii oo dhan waa la casilay meesha waxaa soo hadhay dad magacyada Oromo oo meesha ugu sareysa fadhiya iyo hawshii hore abaanduliyaasha ciidamadoo dhan waxa haysta Amxaara way ilaa hadda xageed dagaalku marayaa way marka qodobkaas aynu soo gudbinaa dagaalku wuxuu marayaa ciidamada federaalka Ethiopia ilaa xad dhulkii Tigreega way galeen deegaano badan bay galeen runtii TPLF tana runtii waxa uu fiicnaa in gudaha loo soo galo sababtoo ah xuduudda kuma ay dagaalami karin TPLF markii dhinac laga eego sababtoo ah xuduudda Amxaarada biyihii baa u dhow caanihii baa u dhow wax walba u dhow waa dhulkoodii way dagaalami karaan kale federaalka intaas qowmiyadood baa la dagaalamaysa marka Tigreega waxa uu fiican dhulkaas qowmiyadaha kale ku nool yihiin inay soo fogeeyaan oo gudaha soo galayaan ciidanka federaalka si ay u yimaadaan dhul cadow u ah oo cidna qaraabo la ahayn oo cidna biyo u keenaynin oo meeshay maraan oo dhan la sheegayo la jaajuusay marka TPLF already waxay u sii deysay in gudaha loo soo galo deegaanada badan baa la soo galay wararku wali way isburinayaan xaqiiq dhaba ma hayno laakiin kaartadii ugu dambeysay aan arkay dagaalka isaga waxa way caasimadda ilaa 70 ay Tigreega loo jiraa ayaa la leeyahay ilaa 70 marka ilaa 70 waa space aad u dheer weeyaan waa space aad u dheer horay ma awoodi karaan yani si fudud in lagu qabsado kale waa state buuxa weeyaan oo dad badan ku nool yihiin dagaalku marba marka dambe uu sii adkaanaya waxaa meesha soo gashay marka Abiy Ahmed waa kii midowga Afrika u soo direen ergadii wuxuu ku qanciyay ma yeelayo wada hadal nimankan waa mujrimiin waxba ma ogola sababtoo ah waa inaan gacan saaro buu leeyahay sababtoo nimankan si walba waan ku dayay
inay madhamar ila noqdaan oo maaragtay ila shaqeeyaan oo nacmalayaal noqdaan oo qowmiyadda iyo boqortooyada amxaarada aqbalaan yaan eri way diidan yihiin maxay rabaan marka TPLF maxay ku diidan yihiin TPLF war waxaana laf duubaysaan joojiya waa in yani waa in la qabto national reconciliation yani waa in dhammaan ururada iyo xisbiyada iyo qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia oo dhan ay wada shiraan oo nidaam fair oo cadaalada aynu samayno nidaamkaasoo markaa doorasho la galo marka nimankan amxaarada iyo Abiy Ahmed dhikar baa ku dhacay markay maqlaan cadaalad iyo doorasho sababtoo waxay leeyihiin TPLF haddii doorasho la galo oromadii iyo soomaalidii aaba naga raaci kartaba sababtoo hadda madhamarkii nimankan la dhaho BP cid taageeraysa ma laha siyaasaddan amxaaradu way ka xun tahay tii Tigreega dadka gowracaysa tii Tigreega dhiigya cabaayid mujrimiin ba ahayd laakiin qowmiyadaha dhulkooda kamayna qaadan kale dad minority ba ahayn laakiin kuwan waxay qorsheynayaan boqortooyo saldheer waqti dheer qaadata dhulkoo dhan ay la wareegaan waxyaabihii ay khaldeen iyo waayo aragnimo xumadii waagi horeysay ay ka gudbaan bay rabaan oo dhammaan qabiil walba amxaara intii la dejiyo qowmiyad la dul dejiyo la dhaho xukun oo weligaa madax kaga taagnow arrinta iyadaa marka beesha caalamka marka ee Yurubiyaanka iyo Mareykanka ayaa wada xaajoodkoodii la galay arrintii baa la baaray nimanka Tigreega waxay dhaheen wada hadal waan ogolnahay nabadii lagu wada noolaan waa ogolnahay laakiin waxaan rabnaa reconciliation Ethiopia oo dhan qowmiyadeeda kala duwan inay loo qabto waxay isku waafaqsan yihiin in la sameeyo Abiy Ahmed iyo arrinta iyada way diideen waxay leeyihiin arrinta haddii la sameeyo dhiigii bay rabaan inay ka dhuuntaan cadaaladii bay rabaan inay ka dhuuntaan ma yeelayno saddex maalin buu qabtay marka magaaladan la dhaho Addis Ababa in loo yani makale dadweynaha wuxuu u sheegay saddex maalin wixii ka dambeeyay inaan buufin doono arrintaas marka saxaafadda caalamka oo dhan baa aad uga qaylisay u aragtay ninkan biladda dahabka la siiyey ee Nobel Prize la siiyey inuuna ahayn nin dimuqraadiyad cadaalad iyo hoggaan wanaagsan midna u joogo runtiina Abiy Ahmed meeshan waa markhaati weeyaan waa magacuyaal weeyaan isagu waxba ma xukumo waxa weeye yani waa nin amar la siinayo weey meesha waxaa xukuma waa sirdoonka iyo ciidamada iyo saraakiisha iyo madaxda amxaarada weeyaan waxaan talnay amxaaraduna hoosta way ga xariiqanta ciidanka hadda Tigreega ugu dambeeyay weeraray waxay u bixisay magac la dhaho yani Haile Selassie u bixisay yani iga maqan tahay qaabka amxaariga luqadu qoraan waxay leeyihiin waa guutadii Haile Selassie amal cutubkii hebel ee barakeysnaa Haile Selassie u bixiyaan marka amxaarada iyadu way ka go'an tahay Tigreey ma rabto wada xaajood oromo already good baa la geliyay waxay rabaan marka in Tigreega ugu daran caqabada ugu daran waa Tigreega markay good ka geliso waxay rabtaa inay ka soo roobto qaar Tigreey oo yar oo masiixinimo iyo la ogol oo amarkooda qaata markay intaas hesho waxay u soo jeedsanaysaa qowmiyadaha kale masaakiinta ah waxay kheyraadkooda boobto iyo waxay dhulkooda baabto iyo nidaamka iyadu rabtay boqortooyadii markaas inay ku dhawaaqdaa suurtagala waa Abiy Ahmed laftigiisa la qowlo yaa suurtagala in Abiy Ahmed intii laga takhaluso nin amxaaro caadi ah la doorto oo la dhaho ninkaas aan doorno sababtoo xisbi already waa u sameeyeen waa hal xisbi iyaga magacaabaya markii TPLF oo kale ay rabaan inay marba iyagu is doortaan iyagu soo magacaabaan dad magacuyaal gacan ku samaysa ay samaystaan runtii laakiin Ethiopia way adag tahay 110 milyan oo waqtigan casriga joogta ee internetka iyo media meeshu maray ay ognahay in saa loo caburiyo oo qowmiyad tiro yar ku amar ku taaglayso aad bay u adag tahay maxaa dhacday markuu Abiy Ahmed dhaartay beeshii caalamka oo dhan baa afka furatay oo waxaan dhacay wax la aqbali kara maaha waa in faragelin toos lagu sameeyo cadaadis baa dhacay xataa saxaafadda caalamka oo dhan baa saxaafadda caalamka marka maxaa lagu sameeyay yani EBB-dan waxay sameeyeen wariyaal Ingiriisa iyo niman commentator yaa waxay u soo geliyeen dhaar waxay dhaheen waa saraakiil waa cornel TPLF yani qof walbo fikirkiisa cabira oo dhawr waxad wadaan waa khaldan waxay leeyihiin waa cornel EBB u shaqeeya TPLF marka saxufiyiin badan bay ka cayriyeen oo qaarkood Ingiriisiyiin qaarkood Mareykanyiin waxayna eedeeyeen dhammaan hay'adaha caalamiga ah oo dhan iyo human rights-ka AU-da iyagoo ka walwalsan iyagoo hay'adahaas iyaga ma ka bini'aadamnimo runtii sababtoo ah bini'aadamka yihiin Soomaalidu markii jalwaadeen waxa suuqayay ka hadli lahaayeen oromada ay ka hadli lahaayeen laakiin waxay ka tahay iyaga qowmiyaddan masiixiga TPLF-ta waa qowmiyadaha la ilaashado weeyaan ee reer galbeedka ilaaliyaan sida amxaarada loo ilaaliyo oo kaleeto marka xasuuqooda iyo gumaadkoodu waa wax ay reer galbeedku ogoleen weeyaan marka meedii oo dhan baa loo furay hay'adoo dhan baa loo furay maantadan inay ahayd baan filayaa shir baa waxaa ka socday Security Council-ka
warar hordhac ay soo gaaraya waxaa la leeyahay shirka isaga vita la isticmaalay yani waa la diiday waa la hor istaagay oo waxaa hor istaagay baa la leeyahay faransiiska iyo ruushka laakiin xaqiiqdii ma ogi inay xaqiiq tahay in kale ma ogi warka isagaa maanan weli helibin oo baarin waan ogaan doonaa waxaa la leeyahay shirka isaga shir albaabka u xiran yahay buu ahaa shirkii waxaa lagu go'aamiyey baa la yidhi maaragtay waa laisku mari waayey qaarna waxay leeyihiin maaragtay waa dagaal durta u socoto waa khalad weeye marka waa lagu kala duwanaaday shantii security councilka faransiiska iyo ruushka ayaa maaragtay veto isticmaalay baa la leeyahay laakiin xaqiiqdu waxay tabiye kabadhamacaanka ah ruushkan iyo faransiiska waa malayacna weeye meeshan siyaasadda etoobiya dadka ka go'do waa ingiriis iyo maraykan weyaan ingiriis iyo maraykanku hadday go'aansadaan abiy axmed inay joojiyaan saasay ku joojin karaan laakiin haddaad aragto abiy axmed oo sii dagaalamaya wuxuu haystaa go-ahead sababtoo nimankii TPLF ee taangiyada iyo diyaaradaha iyo waddanka oo dhan haystay amar la siiyo ku baxeen amar la siiyo oo ka taga meesha keliya ku baxeen marka maxaa u malaynaysaa in maaragtay abiy axmed uu ka fudud yahay tabarna ma laha meel kuma taagna waxa weeye hadday marka damcaan inay joojiyaan way joojin karaan almuhiim magaaladan maqalla waqtigii loo qabtay waxaa ka dhiman hal maalin halkaa maalin baan arkaynaa haddii abiy axmed weerar all out of war uu ku qaado waynu arkaynaa say noqoto runtii waa arrin disaster ah hadduu magaalo dhan oo caasimada madaafiic la dhaco si uu sheegay taangiyaan isticmaalay iyo madaafiic buu leeyahay hadduu la isticmaalo waa arrin khatarteeda leh isagana gelin karta yani dembi sababtoo sidii soomaalida dhiiggeeda la xaqiraya ma aha ama oromada TPLF carruurtooda la dilo qofkii dila waa la baarayaa hay-adaha human rights way dabagelayaan European Union way dabagelayaan Maraykanku wuu dabagelayaa marka ilaa hadda waxaad moodaa wada xaajoodba hoosta ka socda TPLF isagoo waxay isku mari laayeen isagoo abiy axmed wuxuu rabaa inuu ku qanciyo TPLF wax walba ogolaada maamulka aan u sameeyo ogolaada isdhiiba iyaguna way diidan yihiin waxay leeyihiin isma dhiibayno waa in qowmiyadaha Ethiopia oo dhan ay shiraan waa in iyagu nidaam guud oo Ethiopia la dejiyo kaasoo cadaalada oo federaala oo ama cod la qaado oo afti laga qaado dadka Ethiopiaanka marka abiy amxaarada afti iyo doorasho ma maqli karaan dhagahooda sababtoo way og yihiin doorasho iyo afti inay iyagu shaqo ku lahayn marka arrinta ayada halkaas la isku horumarsan yahay isla maanta warqad aad u dheer waxaa qoray ninkan ay dhahaan maaragtay Desalegn Haile Mariam Desalegn ayaa warqad wuxuu qoray wargeyska caanka Maraykanka ka soo baxay Foreign Policy warqadu way dheereed runtii nuxurka warqadaa ku qoran markaynu eegno wuxuu leeyahay ninkii la dhihi jiray Desalegn TPLF mujrimiin baa ahaayeen aniga laftigayga mujrim ahaa buu leeyahay laakiin hadda siyaasadda ay rabtay leedahay waxay rabaan buu yiri inay dembiga ka cararaan marka warqadan waa warqada abiy axmed iyo amxaaradu wadajir u qoreen oo isaga loo dhiibo la yiri magacaagaan isticmaalayna ay ku dir runtii magaciisana lagu isticmaalay si wargeyska loo diro wargeys maaragtay siyaasiyiinta caalamka iyo reer galbeedka dhan aad u akhristaan si fikirka uu sawiro isagoo leh Tigreeg waxay ku antacoonayaan in reconciliation Ethiopia oo dhan loo sameeyo qowmiyadaha oo dhan laga qayb geliyo abiy axmed iyo amxaaradan waxana afduubayaan laga daayo oo dadku wada tashtaan arrinta ayada wuxuu leeyahay Tigreeg waxay ku qarin rabaan dembigooda waxay rabaan markay arrintaas u dhacdo in iyakii la hilmaamo oo marka reconciliation ay dhacdo ay dembi ka fakadaan marka taa inayna dhicin buu leeyahay in reer galbeedku inay u maleeyaan maaha buu leeyahay sidooda kale inay noo maleeyaan anagu dad afrikaan baana yani wuxuu ka wadaa doorashadu يعني ما جلي كرنا يعني دور شد جديدين يعني وكوضع minority أنا محاربين يا أبا أحمد يو مسيحيين minority إثيوبيا عبوريم دور شيء عدالة هدي لأدو من الإعلام كل عينا مرك أنت إلا قبل ما عند دور شو العادي ولا جهل ما مرك تقولون إن دور شو نلا أذان ما هي وين يكو أقبلان نظام كان له شيئان أو يقاب كأيك هالسمية بقولهم مرك مش أيضا مرك حكعض وحكعض أبي أحمد ديمقراطية عدالة وضنورانشو إثيوبيا أنت بين نوغلين يقوميدا محارضو نيد مريدة أو إنه وحبوبان إنه وحدلان إنه بدلان تجيجي أو يكو عدالة درسميان ويان يولقود رنتي قوميدا إثيوبيا أوروميا إثيوبيا إتغريغا يبنشنغولكا سيداما جنبيلا عنفر قوميدا يكا وحيكو قسبيين inay xisbigan abiy axmed ka hor yimaadaan inay ka soo horjeestaan inay hadal cad ay dhahaan runtii arrintan inaan la dhihin waa TPLF iyo ma TPLF qof walba dembi gal in la xisaabiyo waa muhiim
cadaaladdu mar walba inay meesheedii marto oo qof walba maalin dembi gala la xisaabiyo waa muhiim laakiin waxaa muhiima cadaaladda wada noolaanshaha iyo doorashaduna waa iyaduna waa muhiim marka shucuubta la adoonsaday Soomaaliyeed ee maaragtay xuquuqdoodii la rabo in la boobo inay ogaadaan at least amxaarada ku xoogto Abiy Ahmed ha xoogo wax laakiin inaad taageerto ma qofku xoogaya oo ku boobaya tigreegu mujrim buu ahaa dhiig badan oo Soomaaliyeed gudaadii jeelogaadeen buu sameeyay xadgudub iyo wuxuushnimo aan hore loo arag buu sameeyay laakiin qowmiyadihii muuna tirtirin dhulkaagana threat kuma in sababta 3 milyan kaliya oo qaybsan karin buu ahaa laakiin hadda arrinta Abiy Ahmed ee wadaan iyo arrinta ay wadaan nimankan ee ah Madamir waa arrin mugdi ah waa arrin khatarteeda leh waa arrin aan dan u hayn cidna sababta darteed baa qowmiyadda Oromadu banaanka isaga dhigtay Oromadu Abiy Ahmed kama hor imaateen haddii nidaamku uu wada ku dareemayaan naxariis ama dimuqraadiyad ama cadaalad laakiin markay arkeen inuu ninkan wuxuu wado ay adoonsigii tahay Haile Selassie Menelik way diideen sababtu way ogyihiin Haile Selassie Menelik waxay ku soo sameeyeen in beerahoodii la qaatay in beerahoodii lagu fali jiray lacag aan laga siin jirin la adooma laga dhigay arrinta iyadana arrin maanta la aqbali kara ma Soomaaliduna marka sidaas la eegin u sabcinin wayaan Abiy Ahmed waa inuu ogolaadaa wada hadal waa inuu ogolaadaa doorasho xor ah waa inuu ogolaadaa qowmiyadda Itoobiya inay nabad ku wada noolaadaan waa in arrinta marka qof walba activist inuu tago Twitterka oo cabiro oo dhaho Abiy Ahmed jooji dagaalka waa in wada xajood iyo doorasho caadil ah oo marka garsoor caadil oo la xisaabtamo mujrimiintii uu jiraa marka dad badan oo Soomaaliyeed waxa arkaysa dhaay Abiy Ahmed baa fiican iyo hebel iyo TPLF marka caadifo lagu hoggaansamo weliga ay Allah marka uu xukuminayso strategically baa loo fikiraa yani waqtiga fog iyo mustaqbalka markii uu jiro nin ku yimid kula dhulkaaga admari waa Abiy Ahmed oo shirintu goday ku qabtay qabiiladii Soomaaliyeed oo dhan isugu yaray iyo dhulkiina waa la qaadanaya oo afcada oo aan ahayn waxan qarsoonayn oo madaxweynihii deegaanka uu soo dhiibay oo oday walba degmadiisa intii laga keenay la yiri Birkaman waa loo soo guuraya dhulkan waa rag ilaabaan imanaya ku talagalo sug yani qofka noocaas ee ogolayn xisbigaagii baabiyay ee ogolayn aad inaad doorato ee xataa dadku ku magacaaba aan la xisaabtamayn ee tacliin la'aan ku dhigaya caafimaad la'aan ku dhigaya bilaa mustaqbal ku dhigaya runtii arrimahaas oo dhan arrimo in la aqbalo ay tahay maaha dadka Soomaaliduna ma aragto waa inay ka falceliyaan la diido meel lagu soo jeesto qowmiyadda Itoobiya mar labaad iskaashadaan Oromo Bishopur Tigray Sidaama Anfar waa in mar labaad la isku taashado maaha dagaal iyo qori hala qaato laakiin si dimuqraadiyada waa in la diido xadaarada waa in la diido nidaamkan ay amxaaradu wadato ay rabto inay boqortooyinta noqoto ay mar labaad dadka adoonsato runtii waa fikirkayga shakhsiga weeyaan wararka ugu dambeeyay Itoobiya intaas ahayd waxa kale oo bariyahan ka socday Mediterranean-ka xeebaha u dhaxeeya Masar Turkey Libya iyo Greece waxa ka dhaxeeyay bariyahan ka socday shaqaaqooyin colaadeed runtii oo aad u baan taasoo u dhaxaysa Turkiga iyo Greece oo dhinaca iyo Masari iyo oo dhinaca iyo Turkiga iyo Libya oo dhinaca runtii waxa weeye dhulka isaga ee badda waxa laga helay kheyraad aad u badan saadiga aragtaan marka hawaan gadaashayda oo badeecadu sidii magaalada Libya weer aad culus baa laga soo qaaday marka dhulka isaga bariyahan waxa ka socday dagaal aad iyo aad u baan iyo maaragtay colaad laga yaabo dagaal saddexaad oo adduunka inay horseeda ayaa dhici karta arrin aad loola yaabaa ka dhacday runtii markab ganacsi oo marayay baddaas Mediterranean oo socday Libya ayaa diyaarada helicopter iyo markab dagaal oo European Union ka ay weerar ku soo qaadeen ha ku soo qaadaan umayna baarin si akhlaaq leh waxay sameeyeen yimaadeen yaa dadkii markabka waday waxay u xireen sidii iyagu dambiila ama argagixisa oo maaragtay la caburiyay oo saacado badan lahay runtii arrinta ayada ayaa waxay ka dareen colaadeed ka dhexdhalisay Turkiga iyo Jarmalka iyo EU-da waxayna ka kicisay halka ayada fidnad runtii wadamada ninkii Faransiiska ah Emmanuel Macron oo bariyahan baad arkaysay Nabi Maxamed caynayay oo maaragtay muslimiinta iyo diinta Islaamka runtii aad u xad gudbayay isagoo isku khalqeeyay dadka argagixisada ee terrorista ah yani qof cadaan hadduu dad dilo ma dhahayo waa argagixiso laakiin qof muslim hadduu wax dilo wuxuu leeyahay waa argagixiso wuxuu ka dhigayaa diinta Islaamka inay soo amartay annagu og diinta Islaamku inaynan shaqo ku lahayn argagixism ama xadgudub ama qof innocent in la dilo laakiin madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ah nin racista fascista runtii baad moodday Hitler oo kale inuu yahay qaab uu fikirayo qaab aad u hooseysa Yurub waa wadamo waxay ahaayeen wadamo dimuqraadi ah oo waxay horumar ku gaadheen
oo si xora oo diintu xorta oo qof walba diintu raba caabudi karo laakiin waddanka constitutionkiisa loo hogaansamayo Emmanuel Macron marka wuxuu sameeyey dembi aad u badan ayuu baryahan oo dhan wuxuu weerar joogto ku hayay muslimiinta isagoo leh ma aragtay xataa yani waxaa igu soo maqala ah inuu masaajidka yiri imaamku markuu salaada jumcada dadka tujinayo waa inuu heesta calanka la qaado ee faransiiska gaaray ilaa heer noocaas u gaaray arrin aad loola yaabo weeyaan oo aad looga xumaado runtii marka بريان واجدي سعودية دد بدن أو ماركتي ودمada muslimiinta ay bilaabeen inay qaadacaan bay bilaabeen runtii oo ay maaragtay badeecada Faransiiska si loo edbiyo sababtoo ninkan waxa uu xadkiisii u dhaafay isagoo isku khaldaya mar walba wuxuu isku khaldaya diinta islaamka iyo qof mujrima yani argixisada al-qaacida iyo kuwan terroristiyaasha dadka ay laayaan ee xasuuqaan waa muslimiinta weeyaan dadka ay ku xadgudbaan diintooda waxyeelayaan waa dadka muslimiinta weeyaan jihaadka sheegaan oo dhan waa been iyo khuraafaad weey badidoodna waa jawaasiis weeyaan marka Macron ayaa baryahan wuxuu si toos ah isagoo ka shidaal qaadanaya niman dictator oo caraba iyo isagoo iskaashanay ayaa waxay go'aansadeen waxay dhaheen muslimiinta Yurub ku nool si xor ah u nool yihiin way tukadaan ilaahooda caabudaan kala dad badan oo Yurubyaan muslimaya marka waa inuu ku adkeeyo rabaa inuu ku celiyo nolosha marka ninkaas ayaa ka dambeeya colaadan sii fidaysa ee soo gaadhay xataa ilaa Liibiya ilaa dhulkan oo dhan lagana yaabo si aan muhiim ahayn dagaal mar labaad uga qarxo dhulka isaga arrinta iyadana dhacdooyin ka mid ahayd qodobkeena ugu dambeeya ee barnaamijkeena kooban ee runtii waqtiga dheer qaatay waxaan ku soo qaadanaynaa Prime Minister Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Soomaaliya runtii waxaad moodaa waxaan galay page-kooda Twitter-ka oo ah meesha ku soo bandhigaan ama ay bulshada ku ogeysiyaan wax qabadkooda madaxweynaha markaad u tagto page-kiisa waxaa ku yaala tacsi hambalyeyn ururka dhalinyarta la qaabilay hay'ad khayri ah shaqo ay qabatay oo uu dhex galo madaxweynaha muddada 4 sano uu joogay shaqo uu intuu alifay barnaamijkiisa dejiyay uu fuliyay ma jiraan madaxweyne Farmaajo ma jiro intuu kursiga yimid ilaa maalinka maanta waa 3 years barnaamij qorshe intuu dejiyay madaxweynimo oo isagu u maalgeliyay uu execute gareeyay ma jiraan ciidanka Soomaaliya loo tababaro Turkiga iyo Qatar iyo dadkaas ka caawiya deeqaha la furfurayana waxa ka dambeeya xataa shirarka la qabanayo European Union ayaa ka dambeeya madaxweyne Farmaajo wuxuu noqday iyo Prime Minister radii ku xigay waxay noqdeen dad Soomaaliya kursigeeda ugu soo fadhiista si ay shirarka African Union uga qayb galaan ka jaamacadda Carabka uga qayb galaan Kenya uga aadaan Eritrea u qaabilaan waxay noqdeen dad mutafarrijiina Soomaaliduna waa dad dayacan oo dhiban oo silacsan oo bila caafimaad oo u baahan gurmad haddii maanta bamba lagu qarxiyo waxay dhakhtar Turkiga la leeyahay arrintaasna waa khalad waxa weey arrinta la yaabo waxay tahay Farmaajo iyo Khayre iyo dadka la midka ah iyo Rooble hadda yimid waxa loo baahan yahay hogaaminta Soomaaliyeed haysta inaad qorshe keentaan Maxamed Siyaad Barre jaamacad kama soo bixin reer baadiyo wuxuu iska askartii booliiska ee Talyaaniga ahaan jiray laakiin Soomaaliya markuu yimid waa weydeen siduu u bedelay nin walba Soomaaliya aqoon laab gacanta soo qabsaday barnaamij ku dejiyay ciidanka geeska Afrika oo ugu xoog badan saddexaad buu sameeyay Algeria waxa ka xoog weynaaban Malayna iyo Masar iyo South Africa saddexaas ka xoog weynaa bis waa isagoo hadda ahaa weeynin oo Soomaaliya oo wuxuu ka luqadda Soomaaliga u qoray Soomaaliya oo dad wax akhriyo waxna qoro ka dhigay wax soo saarka Soomaaliya warshadaha cirkaas weey bal ee saxariib wuxuu ka dhigay cagaar shilaambood iyo mashaariicdii dhulkan ay maaragtay ay nabad guur ka jiray marka sababta la isweydiinta laba waxay tahay maanta oo Soomaaliinta qurbiga caalamka oo dhan ku nooshay oo aqoon iyo wax walba hayso dad kartile ay yihiin 30 iyo something years ay nool yihiin bila dawlad dadka sida u karti badan madaxweynaha iyo prime minister intuu hor yimaaday talaabo aan qaadayn ee maalin walba hebel baan u tacsiyeynaya walaalkay Erdogan waxaan uga tacsiyeynaya maalinkii la inqilaabi gaaray maalinkii hebel yani arrinta waa arrin aan la yaabay weeyaan dadka Soomaalidana waa arrin loo baahan yahay ku baraarugaan kama falcelinayaan ma la xisaabtamayaan ma qiimeynayaan baarlamaanka Soomaaliyeed waa la mid يعني مدحوينها إبراهيم نصر مركز شق قبسون ويان ذاتك الربعين كشق يستوى برلمان وكرسون الكلام نقدام لكن واحد موتا مدحوينها وحكم صلاة إبراهيم نصر أمريكي سقاطة ونكل شيء ينتو المقعابين
waxaa kaleetuu keenaa nin baarlamaana oo ku dhaho lacagtaada miska qaadanaysaa ma aamusaysaa marka soomaaliya nolosheedii iyo mustaqbalkeediina halkaas ku aamusnaanaya sababtaa wey sababta magaalada muqdisho u xasili laadahay sababtaa wey sababta dowladda soomaaliyeed u gaari laadahay afgooye sababtaa wey sababta baddii soomaaliyeedoo la bilqaysanaya habeen iyo maalin nalalka magaalada muqdisho waxaa ka badan nalalka badweynta hindiya ku yaalla ee kalluunka soomaaliyeed ee la boobaya caalamkii oo dhan intaasoo milyaardi baa laga sameeyaa maraakiibta china ee ku jirta badweynta hindiya every night waxaa lagu sheegay inay ka badan yihiin ilaa 55 markab oo kuwa xaaluufiya kalluunka waxantiisa qaadaan cid dabagelaysa oo baaraysa male waxaa laga yaabaa qablayaal maamul goboleed deegaano kala duwan inay ogolaansho ka haystaan qaarkoodna sharci darro yani wax baaray male ciidan badeed oo soomaaliyeed ma jiro ciidan badeed oo soomaaliyeed ma jiro militarigii soomaaliyeed maalin isma ballaarinayo qorshayaal ma jiraan madaxweynaha yimaada iyo prime ministerku iska aamusnaanaya maanta dhan waxaan arkaya hadda madaxweynaha Soomaaliya waxaan arkaya prime minister ko baydhabo tagay prime minister Roble oo baydhabo tagay baydhabo hadda muxuu ka sheegay shirkadda hawl ay qabanayso hay'adda khayriyada ee qadar al khayriya ayuu wuxuu ka dhiganayaa waxqabadkii prime minister Soomaaliya oo wamaanaan fadhiyin hay'adda khayriga ee Turki inuu raaraaco ama shaqadooda la qabto ama hay'adda tike ee Turkiga inuu raaraaco lagama fadhiyin waxaa laga rabay hogaamintii prime minister barnaamij prime minister uu leeyahay oo Soomaaliya ku badbaadinayo inuu sheego Soomaaliya wuxuu ka qabanayo wanugna prime minister kan waqti yar buu haystaa waqti wiisna waa ka dhamaanaya hawlo waaweyn ma qaban karo laakiin at least waxaa la rabay inuu ku muujiyo inuu yahay nin ka bedelan kuwii ka horreeyay oo barnaamij ku dhaqaaqa ay jirto baa la rabay runtii aad baan uga xumaay waddanka Soomaaliyeed oo ah qani inay mar walba noo joogaan madax ku simayaala waxay ku simayaan inta gumaysigu nagala wareegay way arkaan carruurtii Soomaaliyeed dhaqankoodii oo dhan uu baaba'ay meesha lagu hogaamiyo waa TikTok iyo Facebook iyo maalayacni mustaqbal ma jiro tacliin ma jirto caafimaad ma jiro dhaqan ma jiro yani nothing halkaas YouTube-ka habar walba iyo 90 jir xataa 90 jiradii hooyooyinkii iyo raggii Soomaaliyeed wada waalan yaa live-ka soo wada galay يعني عيد برمانيس عيد عاون سومالي سيد كو غاري كرتا marka qoomiyada carruurtooda wax baraya oo maalin walba tartansiinaya oo barnaamijkooda isku xiray oo madax han leh oo qable oo isku kalsoon ay hogaaminayaan markuu joogo madaxweyne afgooye oo nabad ahayn wadahada nabadaysiinta Suudaan aaday yani habartii xaabada qaadi weyday tiri xaabo kale igu soo daro oo kale toway adoo afgooye tagila sababta asoo Suudaan nabadeynteedu waa aadis ee shirarka beenta maalayacniga maalin walba waa aadis madaxweyne farmaajo way iyo khayr weeyaan lacagta ummadda soo khayr buu tagay bay laakiin waxa kooda iyo Roble waxaan marka leeyahay ummadda Soomaaliyeed sidan haloo dhaamo dadka Soomaalidu way dhiban yihiin wallahi hooyooyinka Soomaaliyeed Yurub markaad ku aragto iyagoo wada khafiifay oo waa shibad arkaysaa waa an habiya oo nolol sirca ku jira markaas maalin walba telefishinada cunsuriin ba ka caynayo ka cadaabayo Macron oo kala maanta dhan diintoodii iyo nabigoodii caynaya yani wax ka qabanayna male oo maanta dhan lagu haya lagu mana sheegtay ma waddan ka fiican Soomaaliya joogta Soomaaliya waddan ka fiican ma jiraan Soomaaliya waddan ka qurux badan male Soomaaliya waddan ka khayraad badan male laakiin Ilaahay wuxuu nagu soo ku saliday hogaamiyaal mugudbiyaala madaxweyne iyo prime minister mugudba calooshu shaqaysta oo amarka inay qeyrkood ka qaataan mooyaane waxaan ka yaab ciidankii Mareykanka yiri Soomaaliya waan ka baxaynaa يا ما أنتم لهم حضرتك يسمى مدحوينه وقهية إن النجاب بحلان معه إن نرجع وقتها معه وحنقروا مدحوينه متاجوس بقى عيدنا أجانب إنه يقول جوجان واي أضيج على نسا واي أضيج عيدنا نسميه سوي صومالي عيدنا إلهذا يحوق ودفاع ومال والقمرة واي أضيج سميه سوي صوت تضرب بتاع عيدنا أجانب بحيث وفرماتشي برايم السركويان يعني ومنتاليتي NGO وحير ربان عيدنا كان مريكن جو العجيز إن العنان inay u shaqeeyaan inay turjumaan u noqdaan in NGO iyo lacagaha ay qaybinayaan ay wax ka cunaan waa dawlad maskaxdeediiba ay tahay NGO inay noqoto inay maaragtay cunto dad kale ku noolashaan maanta dhan aad fiiri madaxweyne barnaamijyadu qabtay oo dhan baan fiiriyay Facebook-giisaan galay beela Soomaaliya waa hay'ado ajaaniba waxay soo qabteen weeyaan wuxuu maalin walba ku faanay ee Soomaalidu kala horado ma jirto hal shay oo alif ma jirto hal madraso oo magaalada Xamar oo rinji mariyay ma jirto hal jid oo magaalada Muqdisho soo gacantiisa ku furay ma jiraan dhamaantood istaadiyo Muqdisho iyo waxaan sheegaynaa hay'ado khayri baa qaban markaas uu iska dhig wax qabadkaygii doorashada hadda markuu galay wuxuu ku keeni doonaa istaadiyo Koonis iyo istaadiyo Muqdisho oo dhigi doona quruxdooda ma aragtaan say ahayd
ورتي أنا ما سمعيني هاي خيري أسمي أو هذه الشغلة قبتي وحلقاس قرن صوماليات بدل صوماليات وإلى لسه كونستيوشن كي قرصوك صوماليات مجالوين كصوماليات أمان كود سكتال جاربي معمول قبلية أو حدود الصوماليات يعني عيدا كشباب الصومالي ما تفرت وامقوا يعني مرنا شنكون مرنا شنتا كنا يا أو شنت كنا جواسيس بدين ويا أوضاعنا يسافر ماجي خيري يعني وحيس كعدوية إن إذا ما هين ضد صحة أو إن الصومالي بتباديان رنت وجيدة وحاتين ضد فريدة أرنت أيضا أرنت صح ما ونكون إرادي موضوع إن آديات بد ما سنتين برنامج كان من أنت نقول منه وأنا وخليف عبدي عليها وإن الله أنت أين بتجليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.